Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada channelka Cadnaan Yaasiin. Warbixintan maanta waxaynu kaga hadli doonaa 4 meelood ee ugu khatarta badan adduunka. Balse inta aynu muuqaalkeen u galin daawada waxaan kaa codsanayaa inaad channelkan subscribe saartid, muuqaalkana like gareysid, una share gareysid ugu yaraan 6 ka mid ah asxaabtaada. saaxiibayaal mar kale kusoo dhawaada channelkan Cadnaan Yaasiin. meesha koobaad ee ugu khatarta badan ee adduunka ee aynu ku eegi doono muuqaalkeenan waxa weeye meesha loo yaqaano Death Valley ama dooxada dhimashada. dooxada dhimashadu waxay ku taalaa inta u dhaxaysa labada gobol ee kala ah California iyo Nevada ee ku yaala dalka Mareykanka. dooxada dhimashadu waa meel aad u kulul, waxaana laga qoray heerkulkii ugu sareeyay ee adduunka kaasoo ah 56.6 degrees Celsius. dooxadan dhimashadu sida magaceeda ka muuqataba waxay galaafatay nafaha dad badan oo u dalxiis tagay meeshaas. xilli roobaadkana dooxadan waxaa ka dhaca daadad aad u xoog weyn oo galaafta nafaha bini'aadanka ee meesha ku nool ama kaag dhowba. meesha labaad ee ugu khatarta badan adduunka ee ku eegi doono muuqaalkeenan waxa weeye meesha loo yaqaano Russian Death Valley. Russian Death Valley sida magaceeda ka muuqataba waxay ku taalaa dalka Russia, waana meel aad u khatar badan oo ay ku hareersan yihiin uumiga fulkaane. sidoo kale waxaa ku hareersan gaasas kala duwan oo khatar ah, gaasaskaas oo dili kara xayawaanada iyo bini'aadanka saacado yar gudaheeda. meesha saddexaad ee ugu khatarta badan adduunka ee aynu ku eegi doono muuqaalkeena waxa weeye fulkaanaha loo yaqaano Hawaii. fulkaanahan dadka dalxiisayaasha aad bay u xiiseeyaan booqashadiisa, sababtuna waa muuqaalkiisa quruxda badan ee bixinaya midabka loo yaqaano yalowga oo aad u qurux badan. burkaanahan ayaa qaraxa joojin ilaa sanadkii 1983 taas oo ka dhigan ilaa 1983 ilaa imikadan la joogo 2024 sanad walba uu qarxaa fulkaanahaasi, waxaanu galaaftaa nafaha dalxiisayaasha. meesha afraad uguna khatarta badan adduunka uguna dambeysa muuqaalkeenan maanta daawade waxa weeye meesha loo yaqaano Skeleton Coast ama xeebta lafaha. xeebtan ayaa waxay ku dhararsan tahay koonfurta Angola ilaa waqooyiga dalka Namibia, waana xeeb qalalan oo jawi adag, waxaana ka dhacda dabeelo ciid badan wadata, waana meel bilaa cunto ah. dhulka ayaa waxaa ka buuxa lafaha maroodiga iyo nibiriga iyo xayawaano kale oo biyo ku nool ah iyo bari ku noolba ah, waana sababta lagu magac daray xeebta lafaha. haddaba daawada haddii aad soo gaadhay dhammaadka muuqaalkan waxaa kaa codsanayaa inaad channelkan subscribe gareysid, muuqaalka like gareysid, share gareysid,